milkaya maamuus weyn bay ii tahay madaxweyne ahaan inaan idinkala soo qayb galo xafladda lagu daafurayo bilowga sahaaminta shidaalka dalka. mashruuca sahaaminta shidaalku wuxuu si rasmi uga bilaabay gobolka Sanaar iyo Togdheer, waxaana u gudbi doonaa gobollada Daadmareed, Maroodijeex, Hawd iyo Sanaag. anigoo munaasabadan ka faa'iidaysanaya waxaan jecelahay halkan uga mahad celiyo dhammaan bulshada ku dhaqan gobollada howlgalladu ka socdaan sida diirar ay u soo dhaweeyeen. si gaar ah waxaan ugu bogaadinayaa waayeelka iyo waxgaradka sida hagar la'aanta ah isu barbar taagay barnaamijka sahaaminta shidaalka ee ka socda deegaamada qaar. mar labaad waxaan ku hambaleynayaa dhammaan howlwadanada wasaaradda macdanta iyo tamarta oo hormuud ka yahay injineer xuseen cabdi ducaale doorkii iyo dadaalkii ay ka geysteen hirgelinta mashruuca qiimaha badan ee ka mid ahaa himilooyinkii xisbiga kulmiye. mudanaaliye marwooyin khayraadka iyo nimcooyinka kala duwan ee aadamaha u qaybiyey waxay ka mid yihiin ayaanka iyo nasiibka la isdheeryahay. sidaa darteed waxaa lagama maarmaana inaynu ogaano wixii qadarka alle aynu qayb u helnay iyo wixii qaniimad dalkeenu hodan ku yahay. haddaba sina ugagu gaadhno arrimaha waxaa laynooga baahan yahay inaynu la nimaadno tala adag, tawfiiq wanaagsan iyo taabulsho weyn. Soomaalidu waxaa ku maamaadaa soor baa lagu fadhiyaa ee sal laguma fadhiyo. sida qarankan aan ku hagayo waxaa budhigu ah in la hirgeliyo horumar ballaadhan iyo in la yeelo nolol dadku ka dugsan karaan. waxaan shacbiga ku leeyahay halkudhagyadii uu geljiru odhan jiray ragna duuru kuwaab jooga ragna dhaqashuu kugu dhabar jabay. mudanayaal iyo marwooyin waxaanu nahay xukuumad bisil oo ay ku duugan tahay dulqaad, dadwad, waayo aragnimo iyo waayeelnimo. sidaa darteed waxaan soo dhaweynayaa dhaliilaha dhabta ah ee runta ku dhisan iyo toosinta wax lagu dhisayo maamulkayga loo soo jeedinayo. anigoo mabaadida aan aaminsanahay ka duulaya waxaan diyaar u ahay inaan saxo wixii qaladama. waxaana la yidhi qalad waa markii la qabto. dhinaca kale waxaan ixtiraamayaa aragtida ka soo horjeeda hayaanka horumarka iyo higsiga himilada qarankan aan hoggaankiisa hayo. waxaan xurmaynayaa xuquuqda iyo xorriyadda muwaadiniinta. waxaan caddaynayaa inaynan jirin isla markaana aynan doonin cid lagu cabulinayo ama lagu ciqaabayo fikirkiisa qof ahaaneed. hase yeeshee waxaa reeban in sharciga gacanta lagu qaato ama laysa taago howlgallada sahaaminta shidaalka iyo mashaariicda kale horumarka ama maalgashiga ee dalka usoo horyeeshay. waxaan u digayaa cid kasta oo isku dayda inay abaabusho khalkhal iyo rabshado lagu waxyeeleynayo amniga, nabadgelyada iyo midnimada ummadda jamhuuriyadda Somaliland. waxaan si cadceed oo caddeynayaa in dowladda aan u dulqaadan doonin dibindaabyada dalka iyo dembiyada abaabulan ee qaranka lagu duminayo. arrintana waxay ka mid tahay xilka iyo waajibaadkay saaran madaxweyne ahaan ee la ii doortay. sidaa darteed far waaweyn oo aan gabasho lahayn baan kuu qorayaa. mudanayaal iyo marwooyin sida la wada socono dib u dhac ayaa ku yimid doorashooyinkii madaxtooyada
inoo qorshaysnayd 28 bishii saddexaad 2017 oo maanta ay naga xigto 2 casho xaqiiqdii aad baan uga xumahay dib u dhaca ku yimid doorashooyinka madaxtooyada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka madaxweyne ahaan ma jiro cid iga jeclayd in doorashadu qabsato xilligii loogu talagalay ciise iimahayo xigmadna uma arko inaan kursiga sii fadhiyo waqti ka baxsan muddadii xilaalkii lay doortay isla markaana muddo kordhin marba la ii sameeyo mansabkan aan qaranka u hayaa waxaan ku imid si maamuus leh waxaan jecel inaan kaga tago si sharaf iyo xaraga leh waxaan shaqigayga u caddaynayaa in arrintan aadan ku iman xeelad siyaasadeed iyo xukuumaddeeda oo ka dambaysay dib u dhacna waxaa keenay abaarta ba'an ee nagu habsatay muddo kordhintani waxay ka mid ahayd go'aamadii igu adkaa shakhsi ahaan ay soo maray muddadii aan talada dalka dalwareega ka ahaa sidoo kale waxay ka mid tahay arrimaha culus ee marar badan ka fakiray tan iyo intii aan hana qaaday anigoo arkaya duruufaha adag ee dadkayga haysta haddana si aan uga hortago dib u dhaca ku yimid doorashooyinka waxaan isku dayay inaan ku qanciyo madaxda xisbiyada qaranka in la isku maareeyo gurmadka abaaraha iyo qaybinta kaadhanka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo qabsoomidda doorashooyinka hase yeeshee waxaa iga hor yimid aragtida labada xisbiya mucaarad wadani iyo wixii oo ku adkaystay inay doorashada dib loo dhigo muddo 6 bilood ah tala wadaag tawfiiq iyo tanaasul waa wixii aynu ku caanamaalay ummad ahaan sidaa daraaddeed nin nacab iyo nin jecelba waxaa madaxdii qaranku markaan ku marti qaaday madal loo leeyahay la gaadhay isfahan iyo heshiis qaran taasoo dib u dhig ku samaynaysa doorashooyinka madaxtooyada muddo 6 bilood iyo 10 maalmood ah heshiiska waxaan u gudbiyey aqalka golaha guurtida aniga oo ka codsaday inay sidiisa ku ansixiyaan marka aan si saalaxad leh u hadlo ima farxad gelin go-aankii ka soo baxay golaha guurtida oo ku saabsanaa muddo kordhintii loo sameeyey doorashooyinka madaxtooyada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka hase yeeshee waxaan galwaaqsaday in golaha guurtidu yahay hay-ad dastuuriya oo arrintani ka mid tahay xilalka iyo waajibaadka ay qaranka loo hayaan sidaa darteed ka sakow saluugayga aan ka muujiyey go-aanka ah haddana waxaan u arkaa inuu yahay mid sharci ah waanan ixtiraamayaa isla markaana waanu dhaqangelayaa dhinaca kale waxaan ka garaabayaa niyadjabka ay ku keentay dib u dhaca doorashooyinkeenu dalalka aynu saaxiibka nahay ee naga caawin jiray geedi socodka dimuqraadiya iyo doorashooyinka waxaan jecelahay inaan madashan uga mahad celiyo dalalka ka bahoobay midooda yurub iyo dowladaha boqortooyada ingiriiska ee taladii iyo taageeradii ay hore u geysteen nidaamka doorashooyinka somalilan waxaanu nahay ummad gob ah oo kala taqaan cadowgeeda iyo saaxiibkeeda sidaa darteed waxaa waajib inagu ah inaynu u abaal hayno cid kasta oo waxayna gashataa ama waxayna tartaa geedi socodka dimuqraadiyaed iyo nidaamka doorashooyinka horta ah ma jiro cid inagu qasabtay isla markaana inagu sandullaysay balse innaga ayaa ummad ahaan dan iyo maslaxad bidnay ama u aragnay sidaa darteed ma aha mashruucani mid ay leedahay beesha caalamku balse waa mid aynu leenahay manfaciisa iyo mas-uuliyaddiisaba waxaan shacbiga somalilan iyo haldoorka xisbiyada qaranka
وعدينيا إن يقعوا أنتهي وقامية أهان أنا جاي ما والكيجبا إن قبسوت دورشة حرية حلالي صدق هي توكل بشقوية تونات لما كل يتدري توكل سأنو مال مريم أو حقيقة دورشة حرية حلالة وضلك كل عدا وحكومة إسساتي مسؤولية دي حريص تقالة وأنا هرد دولة السومال وفوريشرين مركز لبربر لجو نظام كيسان قيسك خرج دورشة كسومال بقول كي وشدية الدواتن وحب حجر الدلك الدير بحياشة هالك دولة السومال ده يكب حجتي بقول كي وشدية اللباتن بقول كي وشدية اللباتن سامي قسم البلديك خرج كديوان قريت عود بحياشة يدور شيء كمرتي هذا ينقص فوق داية ينقص صعدا وعامل هذا قدول قرشياشي هراء أما سابق قيسكي هراء حكومة واحد دار شيء أما الدولة ده كله بقول كي بس عشان قرشات الديوان قريت عود بحياشة يدور شيء كمرتي هذا يقبسون دون نوفمبر لبكون يتطبيق وكا taasi waxay daliil cad u tahay sida daacad oo looga tahay isla markaana diyaar galowday gudashada iyo xilka wadaraadka dusha laga saaran ugu dambeyn si loo gudo galo arrinta kaararka codbixiyayaasha iyo diyaarinta wax kasta oo loo baahan yahay waqtiga munaasibka ku ah waxaa laga maarmaan ah aan u arkaa in wada shaqayn buuxda si joogto ah ay yeeshaan dhinacyada kala duwan ee khusayso arrimaha doorashooyinka sidoo kale waxaa laga maarmaan ah in si wada jira loogu diyaariyo qorshe iyo jaangooyin lagu xaqiijinayo qabsoomidda doorashooyinka dabada isku haya isla markaana laga hortago dib u dhac dambe oo ku yimaada nidaamka doorashooyinka أنا كدولة يوم تغير يا هوش بدنا نهرتها وحن مقعابيا أما أن سكرية تضبط كان كودي مستنبذة أي كل ليهين سدع الحسبية قرن حبنا قوما وكتسر حكومته كان ها وزارة قابل سنشقة عن كودي قدور شيء كقركة يقوم شوقيال أما وكيلك السوتشي ده تقام هذا دق حياشة أما الدرجة إنك تاجران إذا كان دورشيك وعنفريا كنت الحسب مستنبطها تنضبط كان شيء ودوران إنه يكفيان إنه كفيان كل دلولي كتيرا إسلام كان أي ككالميان كديار دورشيك قركة ديارنت قشة ياشر لون بهاي رول مبكى أما فريم ورك وحنفريا قدر الدورشين كقركة إن حلك إيا واجبات كعلوس أسارا وقلتا سد دال طاعد نمو حلك سنمو إيا كرتيري وحنوبر القارية إن لبربر تاغر هاي ترى تاغر وحي يقبع هذا أرما كسابسن دورك حكومة ديرو كقارتي تاكلين تابارا قرشياشا أنا ديارنا مستقبل ككهر لقهر تي دور دباتوي كسبدل كعملة الجيش كأفريقيا وحفا فهي وزير كشرع شوف حاجة بدله الله أبارك لك شبي الله تمت توسن لك هنوني الله ما دورك عاد قلنا دور الله بقي يقبل عاد سمري